السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردقدقة وهذا نسوق علي وسيركي ورفافينتا سومالان أحمياسين الشيخ علي أيا حيلكي إسكعسلي وحا أو لاحظ لي صحافة إسلا مركانا وحاو شيغي إنو حيلكاسي إسكعسلي مانتا هدبا استعسلاديسي إسلو بيريها لاحظ لي صحافة وحا ويري سيدان madaxweynahan ugu mahadnaqayaa in shaqadii aan qaranka u hayaanan halkaa ka dambeeya sii wadi karayn aadna wuu u mahadsan yahay wixii tale iyo tusaale iga baahdo diyaar baan ninka siinayaan ahay laakiin maanta kuma sawirmi karo go'aanka qaraadh ee dhibbiisha ku areerkayaga iyo gobolkayaga iyo tolkayaga inaan axmed yaasiin ahaan qaato waxa ku dhawaaqayaan noqdo oo igu sawirmo ka macaan ee qabow ee wanaagsan ee tolka dejinayana inuu madaxweynuhu isku afayaan noqdo hamigi dadkii u malaynayay nin kursi doonaya nin danay kala dhaafsanaya nin miihikaa kursigii ninkii u hilanaa iyo ninkii hollanayowga welkan baan leeyahay madaxweynuhu ku mahadsan yahay idinkuna saxaafadda aad baad mahadsantihiin qayb badan baan idiin rajaynayaa caddaynayaa madaxweynahan ugu mahadnaqaya madaxweynahan ugu mahadnaqayaa in shaqadii aan qaranka u hayaanan halkaa ka dambeeya sii wadi karayn aadna wuu u mahadsan yahay wixii tale iyo tusaale iga baahdo diyaar baan ninka siinayaan ahay laakiin maanta kuma sawirmi karo go'aanka qaraadh ee dhibbiisha ku areerkayaga iyo gobolkayaga iyo tolkayaga inaan axmed yaasiin ahaan qaato waxa ku dhawaaqayaan noqdo oo igu sawirmo ka macaan ee qabow ee wanaagsan ee tolka dejinayana inuu madaxweynuhu isku afayaan noqdo hamigi dadkii u malaynayay nin kursi doonaya nin danay kala dhaafsanaya nin miihikaa kursigii ninkii u hilanaa iyo ninkii hollanayowga welkan baan leeyahay madaxweyne واتهاي دوليال سيدا وضع أركيسين با وسيركو وحا uu ka dhawaajiyey in uu xilkii iska casilay isla markaasina aanu ahayn mid lagu soo wari doono maadaama shacabka iyo gobolka Awdal uu isagu ka soo jeedo ay maanta madaxa isla galeen shacabkii iyo isagu isla markaasina mustaqbalka siyaasaddiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisaba ay xukuumadda xisbiga wadani ay ku ciyaartay waxaa la odhan karaa waxa uu qaatay go'aan raganimo leh isla markaasina waxa uu muujiyey si mudakirnimo ah ayaa uu u qaatay go'aan wanaagsan inuu xilkaasi ka dego maadaama isaga iyo shacabkiisii layska hor keenay arrintani ayaa waxa ay tahay arrin runtii aad u foolxun maadaama shalay uu wasiirku ku dhawaaqay go'aanka ah in buugga xeerciisa xafladdiisa lagu qabsan karo magaalada saylac taasi oo keentay in shacab reer boorama ay ku dhintaan isla markaasina ay ku tol yihiin wasiirka warfaafinta somalilan arrintan ayaa isaga shakhsiyaddiisa waxa ay gelgishay inuu ka dhiidhiyo isla markaana aanu ka sii mid ahaan karin xukuumadda xisbiga wadani arrintan waxaa la odhan karaa waa mid u horseedi kartaa in mas-uuliyiin kale oo gobolka Awdal ka soo horjeeda iyagoo qudhoodu ay xilka iska casilaan maadaama mashaqada gobolka boorame ay tahay mid sii kordhaysa marba marka kasii dambaysa wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in ay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer boorama ay la tacaalayeen sidii ay dhallinyarta u dejin lahaayeen isla markaana ay ka hortageen sharciyada ay ugu wacyigelinayeen dhallinyarta inay guryahooda ku noqdaan isla markaana ay rabshada joojiyaan haddaba warkan ayaa ah mid aad u foolxun marka la eego xukuumaddan xilka haysa somalilan ee xisbiga wadani oo hadda muddo sanad aan dhammeenba ay xilka hayso ay fowdada noocan oo kale ah ay la kulanto xukuumaddan maanta joogta balse waxaa loogu fadhiyaa sida ay u xalliyaan iyo sida ay wax u maareeyaan maadaama shalay ay iyagu ahaayeen kuwii xukuumaddii hore ee muuse biixi galoodanka ka ahaa ku eedayn jiray arrintii laascaanood iyo foodooyinkii ka dhacay magaalada laascaanood waa tahay wixii wararkan dheeraada ka soo kordhaa dib ayaanu idinkala soo socodsiin doonaa warka degdega ah intaa ayaanu ku soo gebagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته انت ندير كل دونا ومصطفى الى الله السلام عليكم ورحمه الله